bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawatid Maracadda Show waa 11 bisha Afraad sanadka 2022 qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah macluumaadka ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ruushka oo mar kale soo rogaal celiyay cabsida xooggan ay ku abuureen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn gudaha dalkaasi waa berigii Saaka macluumaad kale ee ku saabsan Ruushka oo qiraya awoodda diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga iyo madaxweyne Erdogan oo cilaamiya dagaal cusub waxa kale aan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay banaanbaxyada waaweyn ee lagu taageerayo Ra'iisul Wasaare Imran Khan oo ka dhacay gudaha Pakistan iyo magaalooyin kale oo caalamka ah musharaxiinta iminka u taagan xilka qabashada madaxtinimada ee dalka Pakistan iyo reer galbeedka oo loo iftiimiyay qaabka ay ku joojin karaan duulaanka Ruushka qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa insha Allah ku soo dhawo mar kale Maracadda Show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jiita lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay magaalada Kiev iyo goobo kale oo ka tirsan dalka Ukraine ayaa saaka waxaa mar kale laga maqlay dhawaaqa seeriga digniinta weerarada dhanka cirka ah kadib markii laga warhelay diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ruushka oo dul heehaabaya magaalada kuwaas oo u muuqanaya inay saaka mar kale ay soo rogaal celiyeen cabsi xoogan ayayna ku beereen magaalooyin qaar gaar ahaan magaalada Kiev magaalada Lviv lagu magacaabo magaalada Dnipro oo ay duqeeyeen maalintii shalay garoon diyaaradeedkeeda iyo magaalada Zaporizhzhia la yiraahdo waxaana warbaahinta qaar ee gudaha dalkaasi ay baahinaysaa macluumaadka la xiriira diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ruushka oo si weyn u dul heehaabaya magaalooyinkan iyadoo u muuqanaysa Ruushka inuu u soo rogaal celiyo magaalooyinkan bilaabayna howlgalka wajigiisii labaad tani waxay ku soo beegantay iyadoo madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky uu uga digay muwaadiniintiisa inay u diyaar garoobaan howlgallo waaweyn oo Ruushka uu ka sameynayo gobolada dhanka bari ee dalka Ukraine dhanka kale tirada dadka ku dhintay gantaal lagu weeraray xarunta tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Kramatorsk waxay gaartay in ka badan 50 ruux waxaana lagu waramayaa inay dhaawacyada intaasi ka sii badan yihiin la taliyaha madaxweynaha dawladda Ukraine ayaa waxa intaasi uu ku daray in kadib markii telefishinka uu ka hadlay dawladda Ukraine ay diyaar u tahay dagaalo waaweyn oo dhanka Ruushka kaga yimaada waxa laga baqanayaa wajiga labaad ee howlgalka dawladda Ruushka inay ka sii saameyn bantaan wajiyadii koowaad ee howlgalka Ruushka oo saraakiishiisa ciidamada gabi ahaanba ay sheegeen in wajiga koowaad la soo idleeyay sidoo kale arrinta ayaa ku soo beegantay xilli xalay aan idin la wadaagnay macluumaadka ku saabsan in la bedelay qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada sidoo kalena la magacaabay taliye yaqaan qidada dagaalka kaasi oo ka soo howlgalay gudaha dalka Syria isla markaana halkaasi looga yaqaano kawaanlihii Syria saraakiisha waxa kale intaasi ay ku darayeen in dawladda Ukraine ay ku qasban tahay in ay dib u riixdo ciidamada Moscow ee doonaya inay gacanta ku dhigaan deegaanada gobolka Donbass halkaas oo Moscow ay maamusho labada maamul goboleed ee gooni u goosadka ah dhanka kale iyadoo ciidamada Ruushka ay dib uga gorteen bariga dalka Ukraine ayaa waxa soo shacbaxaya cabsi laga qabo tuulooyinkii ay ka baxeen ilaa iyo 1,000 ruux ayaana lagu waramayaa in ay ku noolaayeen magaalada lagu magacaabo Andriv oo 60 kiiloomitir u jirta magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ugu yaraan 40 ka mid ah dadka magaaladaasi ku noolaa ayaa la sheegay weerarka inay ku geeriyoodeen sidaas oo ay tahayna diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ruushka ayaa mar kale ku soo laba kacleeyay magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah markaan waxaan eegaynaa macluumaadka ku saabsan dawladda Ruushka ayaa waray soo saartay waxay shacay kaga qaaday awoodda diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga ee Bayraktar TB2 waxaana dawladda Ruushka ay shacay ka qaaday diyaaradan inay ka mid tahay mid ka mid ah hubabka iminka ay adeegsanayaan ciidamada dawladda Ukraine kuwaas oo waxyeello gaarsiiyay taangiyada dagaalka ee dawladda Ruushka mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa gudaha dalka Pakistan oo soo xiganaya saraakiil diblomaasiyadeed oo dalka Ruushka ayaa daabacay macluumaadka ku saabsan awoodda diyaaradda Bayraktar TB2 taas oo la sheegay inay ku guuleysatay taangiyo badan oo ay lahaayeen ciidamada dawladda Ruushka isla markaana ay ahaayeen diyaaradihii dhabarjibinta ku sameeyay qaar ka mid ah ciidamada dawladdaasi Ruushka muuqaalada ugu badan ee la baahinaya ee ku saabsan taangiyada burburay ee lahaayeen ciidamada dawladda Ruushka ayaa la sheegay in burburkooda qayb lixaad leh ka qaateen diyaaradaha droniska Bayraktar TB2 oo dawladda Ukraine hore ay kaga iibsatay dawladda Turkiga kadib markii heshiis ay kala saxiixdeen dhinacyadan Ruushka ayaa u muuqanaya markii si labaad inuu ku dhawaaqay qirashada awoodda diyaaradaha droniska ee dawladda Turkiga waxaana lagu waramayaa in ay guulo ka soo hooyeen magaalooyin qaar diyaaradahan xilli ay adeegsanayeen ciidamada ammaanka
sidoo kalena warbaahinta alcarabiya qaybteeda ingilishka ayaa baahinaysa macluumaadka ku saabsan sida diyaaradahan turkiga uu gaarsiiyey gudaha dalkaasi awoodda ay ugu yeesheen inay dhantaalaan duulaankii ciidamada dowladda ruushka ee magaalada kiyef ee caasimada dalka ukrain. ruushka ayaa saraakiishooda waxay shaaci ka qaadayaan in mid ka mid ah diyaaradahan oo keliya ay u dhiganto awoodda laga yaabo inay hor istaagaan ciidamada dowladda ruushka. ruushka waxa uu dareemayaa saamaynta diyaaradaha turkiga uu ka iibiyo dalka ukrain iyo awoodda ay leedahay diyaaradda bayraktar TB2. sidaas ayaa laga soo xigtay mid ka mid ah saraakiisha dowladda ruushka oo qiraya awoodda diyaaraddan. sidaani oo kale horay ayaa diyaaradaha turkiga waxay saameynay ugu yeesheen furmihii dagaalka ay ka qayb galeen sida etoobiya, nagorno karabakh, libiya iyo xitaa dalka syriya oo ahaa goobtii ay ku soo caanbaxeen. sidaasi oo ay tahayna mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga ayaa sheegay in lasii horumariyey diyaaraddan sidoo kalena lasoo saaray diyaarado kasii awood badan bayraktar TB2. dhinaca kalena haddii aynu eegno madaxweynaha dowladda turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa iclaamiyey howlgallo cusub oo uu sheegay in sharciga uu u ogolaanayo dowladda turkiga islamarkaana ay samayn doonaan ciidamada sida gaarka u tababaran. howlgalladan ayaa waxuu ku tilmaamay inay yihiin ka hortagga wuxuu ugu yeeray argagixisada, waxaana madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan uu sheegay inay bilaabeen howlgalladan bilihii ugu dambeeyey kuwaasoo laga sameynaya deegaanada xuduudaha dalalka kala duwan ee turkiga xuduudda uu la wadaago. waxaynu samaynaynaa weji kasta oo ku aadan inaynu la dagaalno argagixisada ku sugan deegaanada xuduudaheenna sharciga annaga oo eegayna sidoo kalena aanan jibinaynin arrimaha xuquuqda bini'aadanimada. waxaynu gaarnay marxaladda iminka aynu ka joogno la dagaalanka argagixisada. sidoo kalena waxaynu doonaynaa inaynu soo gebagabayno ammaanka xuduudaheennana aynu ka dhigno mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan. sidaas ayuu yidhi madaxweynaha dowladda turkiga Rajab Tayyip Erdogan kadib markii uu anfur uu la samaystay qaar ka mid a ciidamada booliiska, saraakiil iyo sidoo kale ciidamada jandamariyada loo yaqaano oo ah kuwa ilaaliya ammaanka deegaanada xuduudaha kala duwan ee dalka turkiga. waxaa kaloo uu la kulmay xubno ka tirsan ciidamada badda ee dowladda turkiga kadib markii anfur uu ugu sameeyey magaalada Istanbul ee dalka turkiga. Erdogan ayaa sidaani oo kale ramadaan kasta wuxuu marba dhinac uu kula kulmaa qaybaha kala duwan ee bulshada. mararka qaarkii xitaa dad rayid ah oo aanan ka malaysanaynin ayuu anfur la samaystaa madaxweynaha dowladda turkiga. sidaasoo ay tahayna waxa uu sheegay ciidamada jandamariyada oo kuwa loogu talagalay adkeynta deegaanada xuduudda ammaankooda ayaa waxauu sheegay in iminka looga baahan yahay qaadidda wejiga kale ee howlgalkan lagu xaqiijinaya ammaanka guud ahaaneed ee deegaanada xuduudaha dalka turkiga. dhinaca kalena Pakistan haddii aynu eegno tan iyo markii gebi ahaanba codka kalsoonida loogala laabtay ra-iisul wasaare Imran Khan, Pakistan marxalado kala duwan oo dhanka siyaasadda ayay gashay, laakiin taageerayaasha ra-iisul wasaare Imran Khan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalkaasi Pakistan gaar ahaan magaalada Islamabad. waxay siteen boorar ay ku qoran yihiin inay doonayaan mar kale inuu soo laabto ra-iisul wasaare Imran Khan. waa kaarkiisii ugu dambeeyey ee uu xoqonayo ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday Imran Khan. horeyna waxaan idinkugu sheegnay in uu dadka isugu yeeri doono in ay yimaadaan wadooyinka waaweyn ee dalkaasi Pakistan sababtoo ah wuxuu haystaa taageerada shacabka. muuqaalada laga soo duubay dusha sare ee magaalada Islamabad ayaa muujinaya xaafado dhowr ah oo gebi ahaanba ay xireen dadka banaanbaxyada sameynaya iyada oo xitaa ay ku adkaatay qaar ka mid a gaadiidka inay wadooyinka isticmaalaan. muuqaalada qaar ayaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxuu ku soo daabacay bartiisa gaarka ee Facebooka. waxaa kaloo ay muujinayaan dadkii ugu badnaa oo halkaasi isugu yimid. sidoo kalena dadka aragtiyada dhiibanaya ayaa ra-iisul wasaaruhu waxay ka dalbanayeen mar kale inuu xukunka ku soo laabto. marka la eego dalka Pakistan waxaa la afgambiyey siyaasigii mayalka adkaa ee reer galbeedka dhuunta u galay. waxaa kaloo la afgambiyey awooddii ay lahaayeen qaar ka mid a xisbiga dalkaasi hogaaminaya. waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in afgambi siyaasadeed uu ka dhacay gudaha dalka Pakistan sidaan macluumaadyadeena hore ku sheegnay. magaalada Karachi ee dalka Pakistan dadkii ugu badnaa ayaa isugu soo baxay. sidoo kalena magaalooyin ka tirsan ee dalka Pakistan meel ka baxsan ayay dadka isugu imaanayeen. sababtoo waxaa la arkaya muuqaalo dad ku banaanbaxaya magaalada Dubai, magaalooyinka waaweyn ee dalka qaar ka mid ah wadamada qaaradda Yurub, kuwaasoo dhammaantoodba dalbanaya in Imran Khan talada dalka uu dib ugu soo laabto. sidoo kalena laga hortago waxay ku tilmaameen dadka doonaya inay afgambiga ka geystaan gudaha dalkaasi. sidaasoo ay tahay kadib markii codka kalsoonida uu waayay Imran Khan, ninka lagu magacaabo Shahbaz Sharif oo la dhashay ra-iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif iyo sidoo kale Sheikh Maxamuud Qurayshi oo iminka ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Imran Khan ayaa isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimada ama ra-iisul wasaaraha dowladda Pakistan.
xoogaga mucaaradka Shahbaz Sharif ayay doonayaan in ay taageeraan sababtoo ah iyaga waxay doonayaan inay gacanta ay ku dhigaan sidoo kalena waxay isku diyaarinayaan sidii hogaanka ay ugu qaban lahaayeen baarlamaanka dalkaasi kuwa ugu codka badan ay u noqon lahaayeen si ra'iisul wasaaraha ay kaga dhigaan Shahbaz Sharif sidaas oo ay tahayna Sheekh Maxamuud Qurayshi wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda iminka jirtay ayaa doonaya qabashada xilkaasi waxaana loo arkaa gacanta midig ee ra'iisul wasaarihii la eriyay Imran Khan waxyaabaha ka soo kordha Pakistan iyo banaanbaxyada ka dhacaya insha Allah macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa markaan aynu eegno reer galbeedka waxa loo iftiimiyay qaabka ay ku joojin karaan duulaanka Ruushka qaar ka mid ah qubarada dhanka shidaalka ayaa waxay soo jeedinayaan aragtida la xiriirta in gabi ahaanba la joojiyo shidaalka wadamada qaaradda Yurub ay ka keensanayaan dalka Ruushka taasi oo lagu tilmaamayo inay tahay wejiga kama dambaysta ah ee lagu joojin karo duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine in gabi ahaanba la hakiyo tamarta Ruushka ayaa joojin karta baaliiro colaadaha dalka Ukraine sida uu ku taliyo madaxii hore ee arrimaha dhaqaalaha u qaabilsanaa madaxweyne Vladimir Putin Dr. Andriy Elainorov ayaa sheegay in Ruushka uusan dhan ahaan uusan u qaadan hanjabaadda dalalka kale ee ah inay yareeyaan isticmaalka tamarta sababtoo wuxuu aaminsan yahay in iyaga dani ay ugu jirto isticmaalka tamartaasi Yurub ayaa ilaa haatan iibsatay shidaalka iyo gaaska Ruushka inkastoo ay sheegtay inay dhimayaan ku tiirsanaanta dalkaasi sanadkii la soo dhaafay qarashaadka ay bixisay dowladda Ruushka ayaa 36% waxa uu ka yimid dakhliga ay ka helayso dhanka tamarta lacagtaasi u soo xaroota ayaa inteeda badan waxa bixiyay wadamada ee qaaradda Yurub oo 40% gaaska dabiiciga ka hela Ruushka halka 27% shidaalkana uu ka soo dhowrsado wadankaasi madaxa siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee ururkaasi Joseph Borrell ayaa maalmo ka hor waxa uu shaacu ka qaaday in maalintii ay bilyan euro dakhli ahaan ay u siiyaan ee dalka Ruushka sabab la xiriirta tamarta ay ka iibsanayaan qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno waa berigii saaka waxaa lagu arkayay magaalada Kiev magaalada Lviv iyo magaalooyin kaleba diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka kuwaas oo u muuqanaya inay soo laba kacleeyeen hay-adda sirdoonka ee dowladda Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in Ruushka uu u isticmaalay bamka Bosphorus loo yaqaano ee weerar kala duwan